kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti oo ka ambabaxay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan in laga hor istaagay degmada Matabaan si ay gobolkaasi ay ugu gudbaan gobolka Galgaduud si gaar ah magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Galawareedyo ayaa KNN u sheegay in ciidamo taabacsan ahlu sunna ay ristaag ku sameeyeen ciidamada Jabuuti kuwaas oo doonayay in ay gudaha u galaan degmooyin ay ka mid tahay sida la sheegay Dhuusamareeb oo la filayo inay ka dhacdo doorashada maamulka Galmudug iyo shirka dib u heshiisiinta beelaha dega Galmudug. Dhanka kale waxaa la soo warinayaa in ay xiisadi halkaasi ka taagan tahay si gaar ah inta u dhaxaysa Beledweyne iyo Matabaan oo gobolka Hiiraan ka tirsan taasi oo u dhaxaysa ciidamo AMISOM iyo sidoo kale kuwa daacad u ah ahlu sunna. ciidamada AMISOM si gaar ah dawladda Jabuuti ayaa waxa ay saacad ka hor ay ku hakadeen sida la sheegay deegaan magaciisa la yiraahdo Janda Guntisho oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Goobjoogayaal ayaa sidoo kale sheegay in ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan ahlu sunna ay buux dhaafiyeen wadooyinka laga soo galo degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan.